بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا أي تاريخ تهاي اللحظة بشة طمناد لبدا كوني لحظة تمكن وعن قصة قناي هوسبيتال كرجب طيب أردوغان. يعني أنكم كشرنا برنامج خيرية يعني وحنا نلا شوكته مروده مدحوينها الصومالية مرو قمر ونقول أصلا نرسوا بوقتي أبوان كالصومالية دعانك أبوان سنجوب أي نرسوا بوقتي نستي حالتي سأقول كورجشة iyada iyo madaxweynaha ayaa maxay daryeel caafimaad u fidiyay halkan keenay kuna haya marka waxa jira barnaamij kaalme kuwan la yiraahdo oo istusa dadka dayarta iyo inta ladan barnaamijkaasi gobollo badan ayuu ka hawlgalay maanta muqdisho ayuu yimi waxa weeye qofka meel kasto insaanka Soomaaliga ay joogo waa barnaamij maxay diiradda lagu saarayo si loo soo kaalmeeyo loo soo qabto waxyaabahan maxay diiradda saarno waxa kamid ah Sangub oo dad badani u ducaynayeen ilaa xalay ilaahay mahadi waxa maanta halkan aan ku soo dhaweynayna inay naga aqbasho inay noo noqoto xubin marwada madaxweynaha Marwo Qamar oo aan doonayno in barnaamijkan nagala shaqeyso oo ay dadka aan doonayno Muqdisho noo jooga iyada iyo Abwaan Guure inay noqdaan oo ay noqoto runtii tusaale waa hooyo runtii aan ku aragnay iyada arrimaha khayrka ka shaqeynaysa anoo ku jooga ayaa waxa ka arki jiray muqbayaasha iyada arrimaha khayrka ka shaqeynaysa yani dadka booqanaysa يعني تاكورينيسا marka waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa ugu yeedhaynaa inay nagala soo qayb gasho barnaamijka kaalme kuwan oo istusa dadka danyarta iyo inta ladan soo dhow هذا محسن عبد المالك برنامجka wadana aad iyo aad ugu faraxsan waana barnaamij dhaxal gal waa runtii oo xitaraaya dadka dhibaataysan marka inaan xubin ka noqdo waan ku faraxsanahay waana taageersanahay xiriirkeegana si toos ah loo helay insha Allah taala inta dhibaataysan ilaahay waxaan uga baryaa inuu dhibka ka qaado ilaahay idinkiisa inta xanuunsan inuu caafiyo abwaaniinta ilaahay noo caafiyo fanaaniinta ilaahay noo caafiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo iskaashi iyo wadajir insha Allah taala daryeel aan kuma dhicin dadkiisa u faacay hore loo daryeelay runtii imika waxa weeye waa booqasho yani xaalad idminaan xaaladiisa ayuunba la jecelaystay in la dul tago oo la soo ogaado xalay toolo oo dad badan u ducaynayeen waxa weeye uu soo caafimaaday ummadda Soomaaliyeed waxa sheegayna xaaladiisu runtii warwar ma laha u soo duceeyay ducada uu maxay ku wajiyay gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed waa waxa halkan jiifa abwaan maxamed cabdullaahi ciise Sangub ummadii Soomaaliyeed ayaa u isaartay madax iyo majo looma kala harin madaxweyne inaa ummadii Soomaaliyeedna waa kuwa quraanka la fadhiyo fasaxaya ilaahay baa u duceeyay qarankiisa u gurmaday ummadiisa u gurmatay wax ka maqan male wax ka halaysan male kuwa beenta sheegay oo xalay soo geliya Facebook-yada waa uu dhintay nafka saarwa ay dhimanaysaa bashar waliba waa dhiman balaaw iyo geerido adna baaqabaysada berritaada maareeyaan leenahay kuwa beenta sheegaya halkan sidii hore loo sheegay maxamed cabdullaahi uga warqabay ku ogaa keenay marwada iyo madaxweynaha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Professor Xasan Sheekh Maxamuud marka waxaan ku soo dhaweynayaa maanta booqashadeedan ku weelinay xogogaalnimada isagaa sheegay reerkaa sheegay cid walba sheegtay waana lagu ogyahay waxa lagu ogyahayna waa waxa uu asagay waxa uu Soomaali u ahaa abwaan qaran abwaan Soomaaliyeed dhiig iyo dheecaan Soomaaliyeed ku dhashay ku joogay ku jiifo meeshuu jiifo saacadana ilaah baa qof walba u haya xayina laguma noolaado xaraariguna laguma dhinto yaa shaafiya caafif maamu ku soo dhawo maanta waxaan soo salaano soo booqanay abwaan Sangub abwaanku waa xanuunsan yahay laakiin hadda aad iyo aad boqolkiiba badan waa caafimaad waxa u hara waa wax alxamdulillah aadan u faraxsana xaaladiisa meesha maraysa ilaahay na u siiya ilaahay rajayna abwaankaas caafimaad qowladiisa ku socda ilaahay maskaxdiisa ummadda Soomaaliyeed dhammaan waa u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed mar walba jiro duceeya hadda kadibna waa usoo duceynaya insha Allah fiona caafimaad waa ilaahay insha Allah waxaa kaloo maqlay inuu xanuunsan yahay isagana abwaan hadraawi أبونا نراوي سكن الحمدلله وأبونا سومالي سكن عافنا الله عافية الله عافية الله عافية الله عافية الله عافية
إن شاء الله أبوكنا عافمة